السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والسلام على أصحابتي لمن بعدين كجبتان وعند رجلنا حلو عشان كوري وحنا كوسو بنا classification of triangles قبل أنت triangle سي لو سو خلص يعني لو كلا سارة triangle ده waxa ku jiray red angle triangle عشان كان maanta ka hadlana wuxuu la xiriiraa uu special u yahay red angle triangle xagaasa kuma leh xagaasa shagaashan kale عشان كان ka hadlana waxa weeye Pythagoras theorem mini aragtidii ama firadii Pythagoras of Samos wuxuu ahaa philosophy Greek ah kuna soo caan baxay fundamental idea of geometry ayuu soo caasaaray ku soo caan baxay fundamental ku soo caan baxayna waxay ahayd maganas xagga waxa ku haysta triangle kan micnaheedu hadiraan areas calaamadii dhinacan waa b dhinacana waa c wuxuu ku soo caan baxay dhinaca sidaas waa dhinaca shakaalka waxa la yiraahdaa hypotenuse wuxuu yiri hypotenuse ku la isku wargareeyay wuxuu la mid yahay micnaheedu labada square micnaheedu opposite sides ka micnaheedu square ka micnaheedu labada oo maganas side oo la isku wargareeyo la isku daray waxa la mid tahay c marka two opposite sides ka maganas a iyo b oo la isku wargareeyo waxa la mid tahay c intaas ayuu ku soo caan baxay oo ahayd maganas Pythagoras theorem marka taas kale oo nahno a oo la isku wargareeyo lagu daray b oo la isku wargareeyo waxa la mid tahay c oo la isku intaas ay ahayd Pythagoras theorem micnaheedu aragtida ninkaas marka haddaan nahno a la isku wargareeyo micnaheedu waa maxay haddana waxaan ku sawiray square dhinacna waxaan ku sawiray square dhinacna waxaan ku sawiray square haddaan hadeer aan isku wargareeyo micnaha ka hadlaya area sababtoo ah waxay naqaan markaan square ka hadlano waxa loo yaqaano areadu waxay la mid ahayd square-ka side-ka la isku wargareeyay hadda dhinaca hadda side waxaan haystaa a marka a aad u weyn oo micnaheedu waa area waxay la mid tahay aada yarna waxay la mid tahay waa dhinac micnaheedu side s ma qorayd waxaan qorayaa a micnaheedu a la isku wargareeyay waxay la mid tahay waa area area waxay la mid tahay a la isku wargareeyay a la isku waxay la mid tahay waa maadaama dhinacyadu is leeyihiin a lagu dhuftay a marka a oo la isku wargareeyay micnaheedu waa areadan oo lagu daray area a oo lagu daray area b waxay siinaysaa area c intaas ayaa ahayd aragtidiisa ninkaas areada a oo lagu daray areada b waxay la mid tahay areada c maadaama micnaheedu dhinacyadu magalas a is leeyihiin dhinacna is leeyihiin dhinacna waxay siinaysaa areadaas marka aragtidaas ku soo caan baxay haddaan cashirkana hore usoo wadno xaggan hoose waxaan ku haystaa triangle-kaasaan ku haystaa triangle-kaas dhinacna waa a dhinacna waa b dhinacna waa c xaga u quman 90 lagu sameeyaa micnaheedu sharcigan wuxuu shaqeynayaa oo keliya markaad haysatid triangle red angle triangle xaga u quman xaga 90 marka aragtida ninkaas waxay ahayd c waxay la mid tahay a oo la isku wargareeyay oo lagu daray b oo la isku wargareeyay labadaasaan la isku wargareeyay haddii a dhinacaas lagu daray dhinacan la isku wargareeyay waxay la mid tahay c oo la isku wargareeyay marka waxa ka hadlaya waa area marka areada c hadda c kaligeed doonayo haddii dhinacan waa c dhinacna waa c dhinacyada afar dhinac isleeyihiin isku root micnaheedu square-ka marka areada waxaan ku heli jiray waan idhi micnaheedu c oo la isku wargareeyay hadda halkan ka hadlayo kaligiis ka hadlayo dhinaca maadaama c tahay dhinac isleeyihiin c isku haddii aan c doonayo labada dhinac waxaan gelinayaa square xagga waxaan isku root baan gelinayaa square ma isku root baan gelinayaa dhinaca dhinacna isku root baan gelinayaa marka waxay soo baxaysaa square root waa areada waxay la mid tahay c kaligeed marka haddaan qalinka isku mid ka dhigo haddaan madow ka dhigo marka areadan square root micnaheedu aan la geliyo waxay la mid tahay c hadda xaggan oo kale sidaan c kaligeed doonayo dhinacana square root baan gelinayaa yani sida dhinacan square root baan gelinayaa waxaan odhanayaa square root oo c micnaheedu haddaan square root geliyo c square haddii square root la geliyo dhinacan kale aan square root geliyo aan dhaho waxay la mid tahay a oo la isku wargareeyo lagu daray b oo la isku wargareeyay marka c haddaan square root geliyo wax kale ma aha square root wax kale micnihiisu ma aha square root haddaan maqsho waa half hadda c oo square root geliyo haddaan ku dhufto half waxaa isla baxaya labadaas iyo labadaas isla baxaya marka c keligeed ay soo haraysa waxay soo haraysa c oo qaliya ay soo baxaysa hadda square root c haddaan square root geliyo waxay soo haraysa c oo square root la geliyo keligeedna waxay soo haraya halkana a oo la isku wargareeyo lagu daray b oo la isku wargareeyay intaas bay la mid tahay c marka maadaama inta ay c inta ay la mid tahay oo aan c aan haysto c intaasaan kusoo saaraya c intaas formula ku saaraya c intaasaan ku saaraya
dadna aad baa la weydiin karaa tusaale ahaan waxaan haystaa c laisku waxa la mid tahay a oo laisku wargeliyey lagu daray b oo laisku wargeliyey haddii la weydiiyo a macnaheed laba dhinac waxaa ka jarayaa b oo laisku wargeliyey waxaa c oo laisku wargeliyey laga jaray b oo laisku wargeliyey waxaa la mid tahay a oo laisku wargeliyey sidoo kale hadeer a keliya doon sida hadeer kale square root baan dhinac gelinaya ka dhinacan waxaan gelinayaa square root dhinacan waxaan gelinayaa square root waxay soo baxaysaa c oo la isku wargeliyey oo laga jaray b oo la isku wargeliyey waxaa la mid tahay a oo la isku wargeliyey marka a square root ka baxaysaa marka waxay soo haraysaa square root c oo la isku wargeliyey oo laga jaray b oo la isku wargeliyey waxaa la mid tahay a kale la mid tahay marka square root ka baxaya marka b na waa sababtoo kale xaggan b baa haddaan b doonay xaggan b baa imaanaysa halkan a isbedelayaan xaggan a isku imaanaysa c oo la isku wargeliyey laga jaray a oo la isku wargeliyey waxaa la mid tahay b haddaan b doonay camal marka sida loo soo dhiraandiriyo formula yani sabtiga formula looga dhigo casharada fara badan aan kaga hadalay haddaad aadan casharada soo daawo haddii su'aal qabtidna kumadka kusoo qor markaas magaranaysaa saas usoo dhiraandirinaysaa markaad rabtid inaad soo dhiraandirisid labada yani hadda kii lagu weydiiyo yani haddii a lagu weydiiyo haddii b lagu weydiiyo haddana hadda tusaale ahaan tusaalayaasha loo imaano tusaale a oo kale hadda waxaan haysanaa triangle-kan dhinacan waa 3 centimeter dhinacana waa 4 centimeter labatunis kala weydiiyey c baa la weydiiyey formuladii baan qoranayaa haddaan doonaa soo saaro c waxaa la mid ahayd a oo la isku wargeliyey oo lagu daray b oo la isku wargeliyey haddana laba dhinac waxaan ka saarnay square root c waxay inoola mid ahayd a oo la isku wargeliyey oo lagu daray b oo la isku wargeliyey marka c waxay inoola mid ahaysaa hadeer laba dhinac waan haysanaa 3 la isku wargeliyey waa 3 centimeter la isku wargeliyey oo lagu daray 4 centimeter la isku wargeliyey oo square root laga saaray marka haddaa 3 ku dhufto waa 9 min square waa wax kale min square garanta wax kale ma 3 ku dhufto min labadaas ku dhufanay 9 centimeter oo lagu daray 16 centimeter square root geeyay marka labadaas 9 hadda ku daro 16 waa 25 centimeter square hal square taasi baa la mid ah taasi waxay la mid noqonaysaa haddii square root haddaan ka saaro 25 waa 5 5 waa 5 bay soo baxaysaa 5 dhinaca hadda wuxuu noqonayaa 5 waa 5 centimeter haddii hadda aad sawirtid aad haysatid magaranaysaa warqadoo kale hadda dhinacan hadda sawirtid aad ka dhigtid 3 centimeter dhinacana 3 centimeter sawirtid labada dhinac aad isku xirtid oo macnaha aad cabirtada isku xirtid 5 baa ku soo baxaysaa dadda doo cabir karta marka aad ayaa loo isticmaalaa daily life-ka magaranaysaa dhismayaasha iyo waxyaalo fara badan aad iyo aad ayuu muhiim magaranaysaa muhiim magaranaysaa markaad sarfida soo saartay dhinac laba markaas ku xirtid oo kale magaranaysaa dhererkooda soo saartay magaranaysaa soo saartay waa aad iyo aad muhiim ah haddii aan nimaan tusaalahan b dhinacan waxaan haysanaa 12 centimeter dhinacna waxaan haysanaa 13 centimeter aad baa lagu weydiiyey marka hadda marka dhowto waxaan ka hadalnay inaynu waxaan ku leeyahay baan a waxay la mid tahay baan yiri c oo la isku wargeliyey oo laga jaray b oo la isku wargeliyey waxaan ku leeyahay marka c waan haystaa shakaalka waan haystaa yani 13 centimeter wax weyn waa shakaalka iyagoo obtuse ka haysanaa hypotenuse ka meena ka hadlaya obtuse ka haysanaa marka 3 iyo taas ku noqo ni a waxay la mid tahay 3 iyo 10 centimeter la isku wargeliyey oo laga jaray 12 centimeter la isku wargeliyey waxay la mid noqonaysaa 13 ku dhufto waa 169 centimeter square oo laga jaray 144 12 ku dhufto waa 144 centimeter square oo square root geliyey labada hadda kala jiro waa 25 waxay soo baxaysaa a waxay la mid tahay 25 square root la saaray 25 square root la saaray marka waxay soo baxaysaa 5 centimeter dhinacaas waa 5 centimeter kaasaasan ku saarsaa hadba ka doonaysid magaranaysaa formulas magaranaysaa soo formula ka dhigaysaa kaar hadba kaarta soo saarsaa marka waa wax iska fudud magaranaysaa Pythagoras theorem kayna fahantin marka waa wax iska magaranaysaa fudud insha Allah ta'ala casharka kaas ku jirnaa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh